Haddii aad furto Google Maps-ka maanta, taleefankaagu wuxuu ku tusayaa meesha saxda ah ee aad joogto, haddii xitaa weligaa aadan tagin. Laakiin sidee taleefankaagu ku ogaan karaa goobtaada? Ma qof ayaa ku daawanaya, mise internet-ka ayaa kuu sheegaya, mise waxaa jira farsamo kale? Maanta waxaan ogaan doonaa sirta GPS-ka. Muxuu yahay GPS? GPS waa 3 eray oo laga soo gaabiyay Global Positioning System, waana nidaam kuu sheegaya meesha saxda ah ee aad joogto, meel kasta oo dunida ka mid ah. Yaa sameeyay GPS-ka? Markii hore waxaa sameeyay dowladda Mareykanka si ay militarigu u isticmaalaan, kadib waxaa loo furay dadka caadiga ah. Maanta waxaa isticmaala qof kasta oo leh smartphone-ka. GPS-ka ma internet ayuu u baahan yahay? Dad badan waxay u maleeyaan GPS-ka iyo internet-ka inay isku mid yihiin. Run ahaantii, GPS-ka wuu shaqeyn karaa xitaa internet la'aan. GPS-ka kaliya wuxuu soo dejistaa khariirada goobtaada. GPS ayaa xisaabiya satellite-ka GPS-ka. Waxaa jira ku dhawaad 30 iyo dheeraad dayax-gacmeed oo GPS ah oo ku dul wareega dhulka. Waxay si joogto ah u diraan calaamado. Sidee ayuu ku ogaadaa taleefankaaga goobtaada? Satellite kasta wuxuu diraa waqti sax ah iyo meesha uu joogo. Taleefankaaga wuxuu cabbiraa waqtiga ay ku qaadatay calaamadda inay ku soo gaarto, kadib wuxuu cabbiraa masaafada. Markuu helo calaamadaha ugu yaraan 4 satellite, wuxuu si sax ah u ogaadaa goobtaada. Haddaba su'aasha waxay tahay, maxaa looga baahan yahay 4 satellite? 1 satellite kuma filna, 2 weli kuma filna, 3 waxay sheegaan meesha ugu dhow, 4 waxay bixiyaan goobta saxda ah iyo jooga ama altitude-ka. Maxaa saameyn kara mise carqaladeyn kara shaqada joogtada ah ee GPS-ka? Dhismayaasha dhaadheer, tunnelada, buuraha, geedaha iyo cimilada mararka qaarkood aadka u darnaan karta. Halkee laga isticmaalaa GPS-ka? Google Maps-ka, diyaaradaha, maraakiibta, gaadiidka, beeraleyda, ciidamada, samatabbixinta, baaskiilada iyo saacadaha casriga ah. Dhammaantood waxay ku xiran yihiin nidaamka GPS-ka si ay ula socdaan goobaha saxda ah ee ay joogaan. GPS-ka kaligiisa miyaa jiro? Jawaabtu waa maya. Waxaa sidoo kale jira Galileo uu soo saaray Yurubta, GLONASS uu soo saaray Shiineeska, iyo Beidou uu soo saaray Shiineeska. Taleefannadooda waxay isticmaalaan dhammaantood si ay saxnaantu u fiicnaato. GPS-ka wuxuu ku shaqeeyaa saacado atomic ah oo aad u saxan. Khalad oo 1 milyan meelood meel ilbiriqsi ah wuxuu keeni karaa khalad boqolaal mitir ah. GPS-ka wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood maalintii. Malaayiin qof ayaa isticmaala ilbiriqsiyo kasta. Sidee GPS-ka u shaqeeyaa markaad safar ku jirto? Markaad wado baabuur mise aad socoto, taleefankaaga wuxuu si joogto ah ula socdaa calaamadda dayax-gacmeedka. Ilbiriqsiyo kasta wuxuu dib u xisaabiyaa meesha aad joogto. Taasi waa sababta fallaarta Google Maps-ka ay kuu raacdo mar kasta aad dhaqaaqdo. Maxaa dhici kara haddii 1 satellite uu shaqada joojiyo? Maadaama aan soo sheegnay in saxnaanta ay ku jirto 4 satellite oo wada shaqeysa. GPS-ka kuma tiirsana kaliya 1 satellite, waxaa hawada sare ku jira satellite-yo badan. Haddii hal hab cillad yeesho, waxaa beddela kuwa kale shaqadiisa. Sidaa darteed, GPS-ka weli wuu sii shaqeynayaa. Taleefankaaga xog miyuu u diraa satellite-yada? Dad badan waxay u maleeyaan in taleefanka fariimo u diro satellite-ka, laakiin arrintu sidaa maaha. GPS-ka inta badan wuu dhageystaa oo kaliya calaamadaha uu satellite-ka soo diro. Markaas ayuu taleefanka isagu xisaabiyaa goobta uu joogo. Tani waxay ka dhigaysaa GPS-ka mid degdeg ah oo ammaan ah. Sidee Google Maps-ka u isticmaalaa GPS-ka? Google Maps-ka wuxuu isku daraa 2 adeeg. Midka koowaad waa GPS-ka oo ku shaqeeya meesha adiga aad joogto. Midka labaad waa internet-ka oo soo dejinaya waddooyinka, magacyada goobaha iyo macluumaadka taraafikada. Labadaas markii la isku daro, waxaad helaysaa hagitaanka saxda ah. Maxay diyaaraduhu iyo maraakiibtuba ugu tiirsan yihiin GPS-ka? Diyaaraduhu waxay u isticmaalaan GPS-ka jid hagida, ogaanshaha goobta saxda ah iyo kordhinta badbaadada. Maraakiibtuna waxay GPS-ka u isticmaalaan ogaanshaha halka ay ka joogaan badweynta, xitaa marka aysan arkaynin dhulka. Sidee ayuu noqon karaa mustaqbalka GPS-ka? GPS-ka wuxuu noqon karaa mid aad uga xawaaro badan, ka waxtar badan, kana saxnaan badan. Wuxuuna ka caawin doonaa baabuurta iswada, diyaaradaha aan duuliyaasha lahayn, drones-ka, robotyada, magaalooyinka casriga ah, smart city-ga, iyo adeegga gurmadka degdegga ah. Mustaqbalka, GPS-ka wuxuu noqon karaa qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosheena. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, maxaa GPS-ka muhiim u yahay? Jawaabtu waa fududahay. GPS-ku anaga wuxuu naga caawiyaa inaan ogaano
meesha aan joogno mise meesha aan u socono. Haddii aad lunto mise aad habaabto, GPS-ka wuxuu ku tusi karaa jidka saxda ah iyo meesha adiga aad joogtid. Haddii aad gaari dalbatay amba taxi, darawalka si fudud ayuu kugu soo gaari karaa asagoo adeegsanaya nidaamka GPS-ka. GPS-ku wuxuu ka mid yahay tiknoolajiyada ugu yaabka badan ee dunida casriga. Adigoo dareemin telefoonkaaga waxaad kala xiriiri kartaa dayax-gacmeedyo kumanaan kiiloomitir hawada sare ku sugan si uu kuu tuso meesha saxda ah ee adiga aad joogtid mise aad u socotid. Haddaba ku soo biira channel-ka Duni Cusub si aadan u seegin muuqaalada xiga oo aan ku sharxi doono tiknoolajiyadaha, cilmiga sayniska iyo waxyaabaha ku soo kordha tiknoolajiyada caalamka. Haddii aad halkaan nala soo gaarteen, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Subscribe saara channel-ka, asxaabtiina iyo walaaladiina la wadaaga si iyaguna ay uga faa'iidaystaan. Sidaas iyo intaan ku kulmi doono muuqaalka kan xiga, madaxaad i saarantiin.